بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن أغيارتنا لصعطة ميل كستوى جوكتان كسو دوادة تحانا كلا أو كاميدا قبرياشا برو شوي عاوة قضبضا ندين هيا قودا هامبا وحا أي دول استاقي دولان قبل كباريغا دحين waxay u muuqataa wax badan oo diblomaasiyadda la isku qarqariyay iyo wax badan oo la kala maatay intii weerarka lagu qaaday Qatar kadib 9kii bishan inay hadda aad loo kala baxayo oo waliba dawladaha Carabta ay fahmayaan dhibaatooyinka halka ay ka soo gaareen dawladaha Sacuudiga Imaaraadka Carabta iyo Qatar ayaa qaadanaya go'aan dhammaystiran oo ku saabsan hanaanka loo jiheynayo gobolka bariga dhexe warar baa soo baxaya tilmaamaya in wadamada qaliishku ay go'aansanayaan inay dib ugu laabtaan heshiiskii 1980 ay gaareen oo ku saabsanaa dhismaha ciidan wadaag ah oo hal hoggaan yeesha iyo waliba in ay samaystaan qalab difaac ah oo ay hawadooda ku difaacayaan iyo dhulka go'aankani waxa uu ka dhigan yahay in ay ka baxayaan qorshihii Mareykanku ay sida weyn isugu haleeyeen ee ku saabsanaa in ammaankooda dawladda Mareykanka ay si weyn u difaacdo iyana ay iska qaataan dhaqaalaha shidaalka ka imaanaya Maxamed bin Salman ayaa qaatay go'aan adag halka ficil uu ku dhaqaaqay boqorka wadanka isu taga Imaaraadka Carabta Qatar ushii ku dhacday ayaa durbaban noqotay mid ka salalisay dawlado fara badan oo adduunka tani waxay noqonaysaa baa la yiri dhabarjab Israa'iil ku yimi waxana hadda si weyn loo fahmayaa go'aankii Trump uu sheegay ama hadalkii ka soo baxay ee ahaa in duqeynta Dooxa Mareykanka iyo Israa'iil labadaba aysan u wanaagsanayn uu aad uga caroonayo xog badan oo la qarinayay iyo ujeedooyin guracnaa ayaa la fahmay banaanka ayay wax badan u soo baxayaan barnaamijka ayaan ku dul istaagi doonaa waxyaabaha caawa ay qorayaan warbaahinta Carabta ee ku saabsan in dib loo majeerto heshiiskii 1980kii ay dawladahan gaareen oo ku saabsanaa arrimaha amnigooda iyo waliba waxa laga yeelayo amniga guud ee dawladaha qaliishka barnaamijka aad ku ogaan doontaan xogtan oo dhammaystiran dhinaca kale waxaan eegi doonaa suuragal saddex khiyaar oo laga yaabo dawladaha Carabta inay ku dhaqaaqaan si ay uga falceliyaan wararkii lagu qaaday magaalada Dooxa 9ka bishan aynu ku gada jirno oo ciidamada cirka Israa'iil ay ka dambeeyeen waxa ay qaadi doonaan tallaabo military mase waxa jira qorshooyin kale oo gadaal yaala oo haddii ay ku dhaqaaqaan Carabta suuragal ka dhigi kara dawladaha galbeedku inay si isku mid ah u dareemaan xanuunka aan dagaalka ahayn oo dawladaha Carabta hadda awoodooda ay leeyihiin haddii tan ay ku dhaqaaqaanse suuragal ma tahay Mareykanku in uu tallaabo degdeg ah qaado barnaamijka ayaan ku ogaan doontaa waxaana ku falanqayn doonaa warbixin xasaasi ah uu qoray wargeyska la yiraahdo Sharqul Awsat ee ka soo baxa dalka Sacuudiga waxaan inta ku dari doonaa haddii uu Rabbi saamaxo wasiirka ama xogayaha amuraha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio oo ku dhawaaqay cadaadiska ka imaanaya Carabta iyo waliba culeysyada Mareykanku uu wajahayo ee ku saabsan arrimaha qaliishka in aysan waxba ka bedeli doonin iskaashiga istiraatiijiyada amni iyo military ee kala dhaxeeya Israa'iil hadalkan waxa uu jeediyay markii maanta uu booqday nidaamka Israa'iil isla markaana uu la kulmay hogaamiyaal sarsare oo Israa'iiliyiin ah qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka bariga dhexe ayaan eegi doonaa xiisadda diblomaasiyadda oo daqiiqada ka dambaysa si kululaanaysa dhabta ayaa loo baxaya Carabtuna waxay u egtahay markan inay isku tashanayaan haddii tan ay dhacdo ma waxa bilaaban doona dagaal weyn oo laba dhinac loo kala safan doono oo gobolka bariga dhexe ah sidee wax u jiraan barnaamijka ayaan ku dulmarayaa asxaabay meel kasta oo aad joogtaan ku soo biir YouTube-ka oo subscribe saara share gareeya muuqaalkan saaxiibadeena la wadaaga waa mahadsantihiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar wixii ka dambeeyay markii Israa'iil ay weerar duqeyn ah ku qaaday gudaha magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar dawladaha Carabta ayaa bilaabay in ay arrintan u noqoto fariin baraarug ah oo hurdada ka salalisay dawladaha Sacuudiga Imaaraadka iyo Qatar waxay hoosta ka qaateen go'aan dhammaystiran oo ku saabsan
suurtagalnimada dhisitaanka ciidamo carbeed oo qaliij ah oo isku xiran islamarkaana si weyn loo qalabeeyey. waxaa sidoo kale la qorsheynayaa dowladda Maraykanka in la hordhigo go'aan dhammaystiran oo ku saabsan sida dowladahan ay muhiim ugu yahay amnigooda islamarkaana iyaga markaan qayb ka noqonayaan inay helaan ciidamo awood leh. sida uu qorayo telefishinka ama wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm, dalalka Sacuudi Carabiya, dowladda Imaaraadka iyo boqortooyada Qatar ayaa si isku mid ah uga carooda baa la yiri weerarka cirka ee Israa'iil ay ku qaaday magaalada Dooxa, halkaas oo lagu beegsaday hogaamiyaasha kooxda wax iska caabinta Falastiiniga ah. dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa ugu baaqay dunida Carabta, dunida Islaamka iyo sidoo kale dunida caalamka guud ahaan inay si wada jir ah uga falceliyaan waxa uu ku tilmaamay dambi dagaal oo Israa'iil ay ka wado gobolka. waa sida uu leeyahay. dhankiisa madaxweynaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Saayid ayaa sheegay in weerarkaasi uu yahay jabinta sharciga qaanuunka iyo heshiisyada caalamiga ah, isagoo ku baaqay isagoo booqasho degdeg ah ku taga baa la yiri weerarka kadib magaalada Dooxa, isla markaana la kulmay boqorka wadanka Qatar Thamiin bin Mohammed Al Thani. intaa kadib ra'iisul wasaaraha dalka Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani ayaa tilmaamay duqeynta inay tahay argagaxnimo ay dowlad weyn sameynayso, isagoo Netanyahu ku eedeeyay hanaan bahalnimo ah iyo xadgudub. waxa uu uga digay dhacdadan qatarta gelinaysa dadaalada dhexdhexaadinta ee Qatar ay ka wado si loo gaaro xabad joojin dhammaystiran oo ku saabsan dagaalka bariga dhexe ka holcaya. maadaama weerarka uu dhacay xilli hogaamiyaasha kooxda wax iska caabintu ay ku doodeen in ay eegaan baa la yiri hindisaha Maraykanka uu soo gudbiyay ee ku saabsan arrimaha xalka dagaalka halkaasi ka jira. dhacdadan ayaa dhalisay cabsi xooggan oo ku saabsan in Maraykanka uu ka laabto ballanqaadyadiisii amniga ee qaliijka. madaxweyne Donald Trump ayaa isku dayaya in uu dejiyo xiisadda ka taagan gobolka ee diblomaasiyadda, isagoo sheegay in duqeynta aysan faa'iido u lahayn Israa'iil iyo Maraykanka labadaba, kana ballan qaaday Dooxa in aysan ku soo laaban doonin falkii lagula kacay oo keliya. hase ahaatee taageerada joogtada ah uu siiya Maraykanka ayaa walwal ku abuurtay wadamada qaliijka, taas oo keentay in ay dib u tashadaan. Netanyahu ayaa ku hanjabay in uu sii wadi doono weerarada haddii Qatar ay martigeliso hogaamiyaasha wax iska caabinta, isagoo yiri ama waa iska saaraysaan ama maxkamad ayaa la soo taagayaa, haddii kale annaga ayaa tallaabo qaadi doona. taas oo noqotay fariin ku socota guud ahaanba dowladaha Carabta. Imaaraadka ayaa si adag uga jawaabay go'aankan, iyagoo ku dhawaaqay in weerarka lagu qaaday hal xubin oo ka mid ah wadamada iskaashiga qaliijka uu la mid yahay weerar lagu qaaday guud ahaanba dalalka qaliijka. Imaaraadka oo hormuud u ah heshiisyadii caadiyeynta diblomaasiyadda ee Israa'iil ee soo bilowday sanadkii 2020 ayaa dhowaan sheegay isku day kasta oo lagu doonayo in daanta galbeed loogu daro dhulka Israa'iil ee maamuso ay tahay arrin cabsideeda leh. khubarada ayaa ku doodaya in siyaasadda Israa'iil ee sii kordhaysa ay qatar ku tahay baa la yiri heshiisyada, inkasta oo ay ka badbaadeen 2 sano oo dagaal ah daanta galbeed in lagu daro halkaasi. Sacuudiga iyo Israa'iil ayaa mar la filayay in ay gaaraan heshiis ku saabsan arrimaha diblomaasiyadda, balse arrintaasi ayaa aad u sii kala fogaatay. boqortooyadu waxa ay ku xirtay shuruud ah in la aas-aaso dowlad Falastiini ah oo xuduudihii 1967 lagu saleynayo, taas oo xukuumadda Netanyahu oo hogaamiyay gabi ahaanba ay diiday. dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa hore ugu eedeeyay Israa'iil in ay tacaddi ku hayso dadka Falastiiniyiinta, waxana uu ku dhawaaqay in uu xiriir dhow la yeesho baa la yiri Iiraan, taas oo muujinaysa isbeddel cusub oo lagu sameynayo isu dheelitirnaanta gobolka. marka la fiiriyo dowladahan ayaa sidoo kale saddexda isla soo qaaday in dib loogu laabtay heshiiskii 1983 kaas oo ku saabsanaa in wadamadan ay ka wada shaqeeyaan iskaashigooda dhinaca nabadda iyo waliba dhismaha ciidamada si isku tiirsanaan amni oo dhammaystiran ay u helaan. haddaba suuragal ma noqon karaysaa wadamadan Sacuudiga, Qatar iyo waliba Imaaraadku inay ka shaqeeyaan in wadamada qaliijka ay isku bedelaan dowlado military ahaan awood badan
sida hadda dhaqaalaha dunida ay saameyn ugu leeyihiin. waqtiga ayaa ka jawaabaya marka la fiiriyo hanjabaadaha ka imaanaya carabta. dhinaca kale dowladda Mareykanku waxa ay sii adkaysay xiriirka iskaashi istiraatiijiyadeed iyo kan militari ay la leedahay Israa'iil. sidaasi waxaa ku dhawaaqay Rubio oo ah xogayaha amuraha dibadda Mareykanka oo booqasho ku gaaray nidaamka Israa'iil. waxana uu yiri weerarada lagu qaaday Qatar ma bedeli doonaan taageerada Mareykanka ee Israa'iil. wasiirka amuraha dibadda ayaa hadda booqanaya baa la yiri Israa'iil ayaa sidaasi ku dhawaaqay. wasiirka amuraha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay in khilaafka ka dhashay weerarka Israa'iil ay ku qaatay Qatar uusan waxba ka bedeli doonin taageerada Washington ee Israa'iil, isagoo xusay in Tel Aviv iyo Mareykanku ay si weyn isugu soo dhawaanayaan. Rubio ayaa wariyaasha u sheegay in uusan ka bixin safarkiisa dibadda. dabcan weerarka nama farxad gelin haddii aan nahay Mareykanka, balse arrintu ma bedeli doonto xiriirka naga dhexeeya Israa'iil. si kastaba ha ahaatee waa in aan ka wada hadalno wixii dhacay iyo saameynta ay ku yeelan karaan buu yidhi, gaar ahaan dhinaca dadaalada diblomaasiyadda, taas oo muujinaysa in Mareykanku ay Israa'iil weli siinayaan garab xoog leh. dhacdadan waxay timid xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu jimcihii magaalada New York kula kulmay ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka amuraha dibadda ee Qatar Mohammed bin Abdiraxmaan Al Thani. kulankaas oo socday muddo 2 saacadood ayaa lagu sheegay mid togan oo wax ku oola, isla markaana lagu heshiiyay in si guud loo wado arrimaha la xiriira nabadda. booqashada wasiirkan qadariga ah ee Mareykanka ayaa ku soo beegantay maalmo kadib markii Israa'iil ay duqeyn ku qaaday xarun ku taalla magaalada Dooxa ay ku sugnaayeen hogaamiyaasha kooxaha wax iska caabinta, kuwaas oo ka doodayay intisaha Mareykanka ee ku saabsan heshiiska xabad joojinta iyo isweydaarsiga maxaabiista. weerarka ayaa kiciya caro weyn oo caalami ah, gaar ahaan maadaama Dooxa ay door muhiim ah ka qaadanaysa dhexdhexaadinta xabad joojinta. xitaa Trump laftiisa ayaa si cad u dhaliilay xulufada Netanyahu, isagoo ku tilmaamay mid niyad jab ku ridaysa dhacdooyinkan iyo tallaabooyinka uu qaadayo. ra'iisul wasaaraha Qatar dhankiisa waxa uu ku adkaystay in Netanyahu la horgeeyo cadaaladda, isagoo ku tilmaamay weerarkan inuu yahay mid niyad jab abuuraya. wasiirka amuraha dibadda Qatarna waxa uu ku sufeeyay weerarka mid lagu qiyaameeyo waddankooda oo dhagar loogu maleegay. hase ahaatee hadda ay diyaar u yihiin mar kasta in ay ka jawaabaan wixii arrintaasi ay kala kulmeen, sida uu ku tilmaamay waraysi uu siiyo telefishin ku yaalla dalka Mareykanka. dowladaha carabta wixii ka dambeeya weerarka lagu qaaday Qatar ma waxa ay ka dhigan tahay 3 tallaabo midkood inay uga jawaabaan. tani waa ciwaanka sheeko uu qoray telefishinka CNN ee laga leeyahay dalka Mareykanka oo si gaar ah arrimahan u lafaguraya. warbixintu waxay leedahay weerarka Israa'iil ee ku qaaday caasimadda Qatar ee lagu beegsaday hogaamiyaasha kooxda wax iska caabinta waxa uu kiciyo baaqi adag oo mideeya dalalka Khaliijka. khibradu waxa ay sheegeen in dowladaha gobolka ay hor yaalaan 3 waddo oo waaweyn si ay uga jawaabaan dhacdooyinkan. midda ugu horeysa oo la filayo inay tahay inay qaadi karaan waa jawaab diblomaasiyadeed, taas oo haddii ay qaadaan ay noqon karaysa mid cawaaqibkeeda uu kululaanayo. waxa uu warbixintu leedahay Imaaraadka oo xiriir dhow la lahaa Israa'iil ayaa tallaabo degdega uu qaaday madaxweyne Mohammed bin Said. Dooxa ayuu ku tagay saacado yar kadib weerarka, isla markaana safiirka Israa'iil ayuu u yeeray si loo cambaareeyo dhacdooyinkan oo Israa'iil ay uga garawdo. ikhtiyaarka diblomaasiyadeed waxaa ka mid noqon kara baa la yiri in Imaaraadka ay hoos u dhigto xiriirka kala dhaxeeya Israa'iil, ama xitaa inuu dib uga laabto qayb ka mid ah ka qaybgalka heshiiska Ibraahimiyada. qodobka saddexaadna waxa uu noqonayaa marka dhinaca diblomaasiyadda laga eego. Qatar dhankeeda waxa ay qaaday dacwooyin sharci ah iyadoo ku guuleysatay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si wada jir u cambaareeyo weerarkan. dalalka kale ee Khaliijka ayaa laga yaabaa in ay ku biiraan tallaabooyinka sharciga caalamiga ah ee ka dhanka Israa'iil, taas oo noqonaysa in nidaamka Tel Aviv uu u noqdo mid u taagan had iyo jeer dacwooyin caalami ah
dhaqaale fara badanna halkaasi uga lumaan. tan labaad waxay noqonaysaa baa la yidhi tallaabo militari oo soo degdegta. dalalka iskaashiga qaliishku waxa ay si wada jira ugu yeeri karaan in la xoojiyo ama la dhaqangeliyo baa la yidhi awoodda derbiga jasiiradda, taas oo ah heshiis difaac oo wada jir ah oo waddamadan ay gaareen 1980-meeyadii. tan waxay noqon kartaa in la dhiso hoggaan militari oo midaysan, nidaam difaac oo gantaalo iyo kuwa hawada ah oo la xiro, iyo awood difaac oo qaliishka ah oo ka madax bannaan waxaa la yidhi ku tiirsanaanta dibadda. weerarka Israa'iil ayaa sidoo kale sababi kara in qaliishka uu ka dalbado Maraykanka damaanad amni oo cad iyadoo aan ku koobnayn iibka hubka laga iibiyo oo kaliya. taas uu ku qasbanaan kara Trump inuu si degdeg uga jawaabo. tallaabada saddexaad oo telefishinka CNN arrintan ku macneeya waxay tahay tallaabo u dhiganta argoosi dhaqaale oo haddii ay dhacdo dowlado waaweyn oo caalamka ah saameyn weyn ku yeelanaysa. qaliishka ayaa gacanta ku haya suuqyada maalgashiga oo dhan ilaa iyo 3 trilyan oo dollar, kuwaas oo qayb weyn lagu maalgeliyo Maraykanka iyo suuqyada kale ee caalamiga ah. dalalka sida Sacuudiga, Qatar, Imaaraadka iyo Kuwait ayaa ka fiirsan kara in ay adeegsadaan awoodda dhaqaale ay ku leeyihiin suuqyada caalamiga ah si ay cadaadis u saaraan Israa'iil, iyagoo xanibaya shirkadaha ka faa'iideysanaya dhaqaalaha ee Israa'iiliyiinta. khubaradu waxay sheegeen in haddii dalalka qaliishku ay ku darsamaan in amnigooda khatar la geliyey, taas oo hadda muuqata iyadoo Israa'iil ay tahay xulufada ugu weyn ee Washington, maalgashigu waxaa loo wareejin karaa suuqyo kale oo hubiya ammaanka iyo danahooda dhaqaale. waxayse noqonaysaa saameyntan in ay waddamada barigu ay ka faa'iidaystaan, si gaara Shiinaha iyo Ruushka. taas haddii ay dhacdo waa dhabarjab dowladda Maraykanku ay kala kulmi karayso suuqyada waaweyn ee adduunka iyo weliba kan gaashaandhigga oo waddamadan ay jaangoyn karaan. dalalka qaliishka ayaa wajahaya xaalad aan horey loo arag oo xagga amniga iyo madax bannaanidooda taabanaysa. saddexdan waddo diblomaasiyadda, amni wada jira iyo dhaqaale ayaa noqon kara hababka ugu waaweyn ee looga jawaabi karo weerarka Israa'iil, iyagoo go'aanka kama dambaysta ah laga filayo shirmadaxeedka Carabka iyo kan Islaamka ee toddobaadka soo socda la filayo in lagu qabto magaalada Dooxa ee caasimadda waddanka Qatar oo ah tan weerarka la kulantay. haddaba ma kula tahay Trump in uu si miir qable u fiirin doono waddamadan, isla markaana uu ka feejignaan doono tallaabooyinka ay qaadaan, si waxa uu ku sii dhignaan doonaa taageerada Israa'iil oo xaaladda dhinac kale u rogi karta? waa jawaab waqtiga laga filayo su'aashan inuu kaga jawaabo. aad baad u mahadsantihiin akhyaarta nala socota qaybtan, intaas ayaan ku gabagabeynayaa. waa Cabdicasiis Barrow idile. si aad taxliil iyo warar kale aad u heshaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara. aad baad u mahadsantihiin. Ramah's Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhammaystiran, waxaana ku diyaara qolol jiif oo heer sarreeya, hoolka aroosyada iyo shirarka, maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan, internet xawaare sare leh, wiish iyo amni joogto ah. Ramah's Hotel waa doorashadaada ugu fiican, waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka.